kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkan oo ah kii shanaad ee taariikhda Soomaalida. haddii haddaba aynu bilowno qaybtii shanaad ee barnaamijkan taariikhda Soomaalida sanadkii ugu horreeyay markii ay isku darsadeen labadii gobol ee Talyaaniga iyo Ingiriisku ay kala gumaysan jireen waxa taagnaa xiisihii la isu qabay sida ka muuqatay suugaantaba. waatay dhegaystayaal aan haddaba idin maqashino heesihii uu soo qaaday Cabdulaahi Diiriye Sooraan oo ka mid ahaa kuwii wakhtigaasi lagu heesiyey waxaana way heesta la yidhaahdo nin lagu seexdo oo ha seexan waa erayadii Cali Sugule waxaana qaadaysay Allah u naxariistee Xaliimo Khaliif Magool. صدحني مقنانا ويسو سعداني صدحني مقنانا ويسو سعداني من لو سحبا سحل اللي باتدا سحل من لو سحبا سحل هالسحل السحل هالسحل هالسحل وينو فيشبو Somalidi midodo sahabi bahlo samati Somalidi midodo sahabi bahlo samati hawsha ay haddaba dawladdii ugu horreysay ee uu madaxda ka ahaa Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay ku dhaqaaqday waxay ahayd sidii loo midayn lahaa maamuladii labada gobol. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo xilligaasi ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dawladdaasi ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay. arrinta ugu cusleyd waxay ahayd qaynuunadii yeelay oo midna Ingiriis ku qoran yahay midna Talyaani ku qoran yahay iyo maamulka guud iyo mabaadida caamka ah oo Ingiriiska iyo Talyaanigu ay ku kala duwan yihiin maamulada. marka arrin sahlan ma ahayn waxa laga yaabaa dadweynahaas hadda suuqa iska jooga ma garan karaan arrintaas culayska ay leedahay ama dhibka ay leedahay isu keenidooda laakiin dadkii muxuu ahaa ama wax garanayay ama maamulka la kulmay iyagu sidii aroo kale iyo dadkii anagu ka mid ahayn bixinada waa dareemi karaan culayska labada nidaam oo iskhilaafsan ay wateen. dhegaystayaal sida Cabdirasaaq Xaaji Xuseen hadalkiisa ku cadayd ama ka muuqatay midayntii labada gobol waxay ahayd hawl aad u culus oo laga yaabo dadka caadiga badankoodu inaanay u muuqanin. Professorka la yiraahdo I.M. Lewis oo ah nin taariikhda Soomaalida si aad wax uga qoray barnaamijkan taariikhda Soomaalida ku saabsan aanu si xoog ugu xiganayno waxa isna uu ku qoray buugiisa la yiraahdo Modern History of Somalia in kasta oo labada gobol midnimo dhaqan ay ka dhaxaysay haddana waxay lahaayeen dhaxal xagga dhaqamada gumaysiga oo kala cadda oo ay ka mid ahaayeen Ingiriiska oo xoogga saara xagga tayada waxbarashada horumarka mujtamaca garsoorka iyo dhaqan wanaagga xagga maamulka iyo in la kala saaro arrimaha siyaasadda iyo maamulka. arrimahaasuna waxay ahayn sida ay u arkayeen reer waqooyigu qaar aan kala cadayn dhinaca koonfurta. faraqa xagga maamulka u dhaxeeyay labada dhinac ka sokow waxa iyaguna jiray dhibaatooyin kale oo ay ka mid ahayd Muqdisho iyo Hargeysa oo xiriir xagga telefoonada ahi aanu ka dhaxaynin markii la isku darsaday. gaadiidka xagga cirka oo iyagu u badnaa diyaarado kuwa booliiska ah isaguna marmar ayuuba ahaa socodkiisu. jidka dhulkuna laami la'aan awgii waxa uu ahaa mid aad u dhibaato badan waxaana safarka baabuurada uu qaadan jiray haddii markaasi wax dhibaato ahi aanay iman ugu yaraan 3 maalmood. kadib haddaba markii uu burburay xiisihii ay isu qabeen labadii gobol ee midoobay ayaa haddaba waxa soo baxay dareemo ay ugu xoog badnayd reer waqooyiga oo isweydiiyey isku darsigii labada gobol inay ku khasaaroobeen iyo inay ku faa'iideen. arrintaasi waxay soo shacbaxday markii saraakiil ciidamada qalabka sida ka tirsan ee Soomaaliya oo reer waqooyi ahaa ay sameeyeen afgembi dhicisoobay bishii Disembar sanadkii 1961. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladdii saraakiishaasu ay ku kaceen. sababta haddaba laga yaabo inay ku kaliftay saraakiishaasi inay isku dayaan afgembigaasi waxaan wax ka weydiinay bal sida uu arko Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxaanu ku jawaabay. wallahi arrintaas muxuu ahaa si nasiib darro ay ku dhacday. aqoonteedu waxaan u malaynayaa garashadayda niman dhalinyaro ah oo dhowr bay ahaayeenoo muddo aan fogeyn ka hor bay ka soo noqdeen adugu kulliyo muxuu ahaa militariga mudayirka bacdi isku darkiibaa yimid
markaas labadii wadan isku darsameen dhinacii militariga nimankii madaxda sare waxay u baxeen oo noqdeen dadka sawska ah. maxaa jira dadka sawska ah awal muddo loo soo shaqeeyey lasoo dhisay weeye, inkasta oo ayan kulliyo weyn oo sida ragga dhalinyarada oo ka soo baxay ayan ka soo baxin, laakiin 20 sano oo jareyniyabay soo mareen, laba sano ruuxooda ay soo qaateen oo kulliyo ay Itaaliya ka soo qaateen. khibrad dheer oo waayo aragnimo ah 20 sanana waa ay lahaayeen. niman ku xun ma ay ahayn inay madax ka noqon karaan militariga, laakiin dareenkeygu waxaa weeye nimankan dhalinyarada ah waxay istuseen nimankan waa iska cilmi badan tihiin, ayagaa madaxnimadii haysta. marka waxaan u malaynayaa ambition ama mahadnama muxuu ahaa darajo iyo iyada oo halkaas sano oo hadda maaragtay isku darsanaa idaacooyin iyo warar aan badidoodu sax ahayn ayaa suuqa la mariyay oo la yiri noord waa la laqay oo south baa laqay oo hadalkaba lagu qabsanayo maaragtay presidentini waa suud weeye, prime ministerkii suud weeye, wasiirkii daaqiliga south baa haysta, booliiskii muxuu ahaa south baa haysta, generaalkii. marka noord waxba ma baahaba waa la laqay. waxaan isleeyahay waxay isku dayahayeen inay waddanka kala gooyaan. sidii haddaba cabdirasaaq xaaji xuseen uu jawaabtiisa ku sheegay oo ahayd inay habboonaan lahayd in sababta la weydiiyo raggii afgembigaasi isku dayey, waxaa noo suura gashay inaannu weydiinno ambasador cabdulaahi aadan oo kongo ku magac dheer kana mid ahaa saraakiisha uu ka fashilmay inqilaabkaasi. cabdulaahi kongo waxaa markii dambe uu noqday danjiraha soomaaliya ka fadhiyey magaalada qaahira, kadibna waxa uu ka mid noqday ururka jaamacadda carabta oo uu ka gaaray inuu ka mid noqdo la taliyaasha xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta. isagoo ka jawaabayay arrinta inqilaabka ka fashilmayna waxa uu yidhi cabdulaahi kongo: inqilaabka horta waxaa ka horeeyey waxdadii koonfur iyo waqooyi, israaxana waxay uga jeedeen markaa in ay u ahaato saldhig shantii soomaaliyeed inay u keena halkaa. markii waxdadaasu dhalatay sida xamaaska ay ku dhalatay markiiba waxaa bilaabmay in maslaxaddii shaksiga ahayd ama dangoosasho in yari leedahay ay ka kor yeesho maslaxaddii caamka ahayd, taasaa ka weynaatay. waxaana jiray markaa miisaankii markaa taagnaa xagga waqooyigu waxaad moodaa inay ka baxeen oo wixii oo dhama ay noqotay in miisaanka uu noqday xaggii koonfurta uun. waxaa dhacday markaa markiiba dadka jooga waqooyiga cadaalad xumaa ay dareemeen, diidmaad dhalatay israaca wax la yidhahdaa. waxaa la saluugameed leedahay markaa israaci maxaa markaa ku cadaynaysa inay saluugaasi jiray? waa cadaynaysaa dastuurkii ama constitutionkii israaca xagga waqooyiga aqlabiyadii inteedii weynayd waa diiday. waxaan xusuusay haddaana khaldanayn gebigiisaba waxaa ogolaaday 4,500 oo qof. taa waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta iyo ardaydooda iyo dhakhtaradii. waxaan xusuusay iskuulladu waxay xidhnaayeen 4 bilood. waxaa kala jiray shucaradii shalay u gabeeyey waxdada ee doonaya inay dhacdo israaco yaa markuna waxay isu rogeen kala go'i. raggan waxaa ka mid ahaa ninkii jimcadde. waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi kongo cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray soomaaliya. hase yeeshee xilligii inqilaabka saraakiishu ay isku dayeen ahaa wasiirka arrimaha gudaha, sidii aan horeba u soo sheegnay ayaanu isagana arrintaasi wax ka weydiinay. cabdirasaaq ma kugu muuqataa shakhsi ahaan marka la eego xilligaasi in ay ka muuqan karto meesha maalan in waqooyigii saamigii ay helayeen aana helno qadar xaq darriga ku jira meesha? su-aasha waxa weeye sidee bay ku timid waxa kaloo siday ku dhaceen weeye sidee ku timid? awal buule markii laysku soo darsamay haddiiba baarlamaankiiba la isugu yimid iyadoo loo dhan yahay, waxaa lagu heshiiyey oo aan la isku khilaafin oo qof walbaba gacan saxabis lagu waxeeyey aadan cabdilla cusmaan inuu noqdo madaxweynihii jamhuuriyada isu timid soomaaliya. qof hadal ka qabay iyo qof la tartamay iyo qof aan ogolayn xaqiiqadu ay tahay ma jirin. dood looma sameyn, saxabis baa lagu aqbalay. okay, aadan cabdille markuu qabtay meeshii dastuurku wuxuu sheegaya waxa weeye aadan cabdille waa inuu dadka la showraa. markuu dadka la showro waa inuu magacaabaa
u yeeraa nin ay la tahay ninkii isaga ay la tahay inuu prime minister laa saame qabiil walaa saame muxuu ahaa gobol midkoodna maskax meesha ku jirta waktigaa ma ahayd aadan cabdilla waxay la noqotay cabdirashiid inuu ka dhigaa prime ministerka inuu ka dhigaa baarlamaankii waxaa loo doortay in isaguna reer waqooyiya yaa loo doortay saddexda jago oo muxuu ahaa ugu waaweyneyd oo legislative executive iyo baarlamaankii judiciary iyagu gooni bay ahaayeen waxaa yimid booliiskii iyo militariga awalba intaan laysku soo darsamin muxuu ahaa yaa la gooyey southka oo ingiriis talyaanigu hayayoo in military la sameeyo general daa'uud baa laga dhigay inuu militariga u madax yahay ayaa markaa laga dhigay muxuu ahaa booliiskana maxamed abshir oo isna generaalaba ayaa hayay markii booliiskii laysu yimid jaamac doorsheel oo isaguna korneylabaa xagga ka yimid oo booliiska wada ayaa ka yimid booliiskii meesha joogay waxaa isla ogolaaday and I think inaan qof muran ka keenaysan jirin maxamed abshir inuu qualified u yahay damooda suguta berberta oo booliiska madax u noqonaya inuu yahay barnaamijkii taariikhda soomaalida oo kii shanaad ahaana dhegaystayaal maanta halkaa aynoo joogo